Okay, so hello. Anu sheekadiisii wadno aan bilaabayaa oo ku saabsan shaxda ninkan Trump ama trumpet. Trumpet waa CD-ga la afuufayo weeye, ma fahanteen? markaad aad u fiirsatay ninka maalintuu dhashay waxa weeye Gemini-na waa 6 anu maxaan idhi Sagittarius baan ahay 6 waan kasoo horjeedaa waan fahmayaa oo 6 waxay ku saabsan tahay ama Gemini waxay ku saabsan yihiin waxaa maamula Mercury ama meeraha la yidhaaho dusa AfSomali ma dusa waxa hoosta kaaga soo dusaya is the messenger planet sheeko kuu soo tabinaya marka programkii tiyaatarka ku saabsanaa sheekooyinka la tabinaya ku saabsanaa haddaynu u fiirsano ninkani waa Gemini waa 6 weeye Netanyahuna u so Netanyahuna saaxiibkiis u fiirsadaya Pennsylvania isku school bay labada nin ka baxeen mogtaa Pennsylvania State University way wada galeen marka saaxiibkiina u fiirsaa saaxiibkiina waa Sagittarius waa signkeyga waa 9 weeye marka maxaan idhi 6 9 way iska soo horjeedaan the new moon in Cancer signkiisa doo fiirsatid waa basically 6 ama 9 oo kala gedisan so waa 69 baa laga hadlayaa marka filimkan haddaad si fiican ugu fiirsatid waa arkaysaa waxa meesha ka socda doorkii hore uu ninkan Obama yimid ninkan Trump yimid Obama waa ninkii wax usoo nadiifinayay sheekada isna uu ku jiraaye Hussein Obama baa la yidhaahaa Xasan iyo Hussein iyo Iraantan iyo shiicadan bay tusayaan meel idinka tusaran ma aragtay baashana microphone ka dhigi lahay but anyways so haddaad fiirsatid ma aragtay nimankan oo dhani iskuulka waxay kusoo barteen they studied humanities dadka sida loo manipulate garayo dadka sida maaragtay loo siro politician markii lagu leeyahay waa dadka sidaad maxaa la yidhaahaa mowqifkaada ugu dhaadhicin lahayd sheekadaada ugu dhaadhicin lahayd waa laydin sirayaa sixirka lagu sheegaya waa sir weeye siraa adigu maaragtay u fiirsanayn but anyways so kan maraykanku waa 6 weeye kan Israa'iilna waa 9 maraykankana astaantooda wadan ahaan haddii loo fiirsado waa 9 weeye waa Sagittarius marka anigu maadaama Sagittarius 9kii ahay 6na aan dhalay ila walaalayihiin kasoo horjeedo maanta Soomaaliya aan ahay dadkii shaxda la sheegayaba falsafada la dhigayba already soo dhigay oo dee maaragtay falkan la tuuray wax ka fahmaya the nation of poet aan ahay riwaayadaha aan aqaano hablayo hadmaad guursan doontaan baa socota xitaa in the other part of the world oo naaguhu nimankii kasoo horjeedaan oo nimankii caayayaan nimankiina naagihii caayayaan waa hablayo hadmaad guursan doontaan riwaayadahan oo dhan soo marnay aynu iswada ognahay waxaan isiri okay ba waxaan imika laynagu mashquulnayba u fiirso so labadaa nin midna waa 6 weeye midna waa 9 marka hadday maadaama on the 25th of this month in a few days Wednesday maalintii markhaatida uu dayaxu maaragtay godkii cancer ku cusboonaysanayo oh yeah the story is interesting and obviously dayaxu labadii adduun waa hadhiyo labadiisa gelin marna dayaxu wuu ku buuxsamaa god marna dayaxu godka kasoo horjeeda buu ku buuxsamaa so that's a fact laakiin meerayaab kale baa meesha khadka soo gelaya meerihii maaragtay Neptune ahaa oo 165 number isbedela ayaa khadka soo galay haddaad dib taariikhda uga laabatina waxaa lagu noqonayaa 1860 berbere maxaa so 1860 berbere maxaa ka socday maxaa maamuli jiray ninkii berigii la dili doono Sharmaarka Cali Saalax baa maamuli jiray berbere Djibouti iyo Sayla
يا أو أنكي خدك لقى سعري خدك سلوقة سعري وحبالو إيدي مركزها ليدي عثمانيين تركيا لما كنت بس عدتين يمكن الصومالية فراها كل شيء أيام مركب وصوت درايو اسطنبول بالغو حكومي مركب دمان وحليل نينكي بدل قواي ساسا مركب مارينكي يا the safe passage ماشي أدونك trade وهاي لولا وريقي يمكن محل ليها محيط لها إيران هرموز بان حرينا أو أدونكي trade كي 25% trade كي أدونك كسراني يوكو سابسنا and oil كا وان حكمين إن هدي أنا نصور وهلاو بربرة is a safe passageway yeah حوتينتنا يا صودري إيران صومي صودرين ربشتن قرمي بلعبين مركي فاهمين بحي كالسعودي الصوماليا أو بريبيو هربا شكل ساسي كدعدا يا 18 something دي 1835 هذا دو في ستيت يا بربرا ليسكو هيستي مرين كاسا ليسكو هيستي the passageway با ليسكو هيستي يا oo ingiriisiga maraykanku waxyaalo badan bay la kulmeen berigii daraawiishta sheekadii daraawiishtuna maxay ku saabsanayd marinka berbera ay ku saabsanayd yaa halkaasay soo fadhiisteen cadan bay soo fadhiisteen marka waxani waa inaad u fiirsid taariikhda waa inaad garanaysid meesha loo socdiyo waxa laga hadlayo ma fahanteen marka everything history repeats itself halkii baa la taagan yahay yaa meesha u talinaya kuwii talin jirin baa taliya marka taaladu waa teeni ma fahanteen waxaan ancient Egypt la isku mashquulinayo faraaciintii waa fartii coonta yaa inaga fircoonnimada lagu sheegayo waa inaga yaa ما فهمتين مركا dadkan waxooda ha isku mashquulina because dad u fiirsatid oo dib xitaa sheekadii biblically ugu laabatid in the book of Isaiah ya book ku jira bible book of Isaiah ayaa laga hadlaya masiixa imanaya oo looranayo waa nin magaciisu yahay cadceeda ama throne ya waa wuxuu Trump matalayo ninkaasina priest baa jiray la shaqeynayo oo la yidhaahaa natan malakh so aynu kusoo laabano the coinku Trump soo saaray a few years ago oo wejigiisa iyo wejigii Cyrus the Great ninka Cyrus the Greatna maxaa loo yaqaanaa historically sida imka laynugu sheegayo waxa la leeyahay waxa weeye nin Persian u ahaa he was a Persian king yaa Irantan inuu maanta ku kacay ninkii dadka shaxda u dhigay oo maamulka u dhigay oo dacwadda iyo looga iyo xitaa yuhuudda soo celiyay waxaasoo dhan buu ku saabsanaa marka muxuu kuu soo sawiray suuratul anfaalna meesha uu kusoo qoray yaa oo wuxuu yidhi 70 years of peace doorkii ugu horreeyay uu Trump iminka president ahaana muxuu sameeyey Jerusalem buu ka dhigay capital of Israel marka waxaan oo dhan shaxdan oo dhan filinkan waa dib ugu laabatid yaa sheekada Cyrus the Great ku saabsanaa sheekadiisu xagee ku jirta waxay ku jirtaa the book of Isaiah yaa buuga Christianka ama buuga the Old Testament la yidhaaho ama the Hebrew Bible Tanakh la yidhaaho ayay ku jirtaa oo buugkaasaaba soo bandhigaya Cyrus the Great marka yuu la hadlayaa Trump wuxuu la hadlayaa dadkan inuu Christianka uu la hadlayo the maga base uu la hadlayo waa dad buuga keliya uun wax ka fahmaya yaa ma fahanteen marka halkaasay ku jirtaa sheekada Iran iyo sheekada imika waxaan socotaa shaxdan imika socota buugaasna waa buugaad ka helaysid Netanyahu iyo ninkuu matalayo Trump ma fahanteen